kulanti wacan u wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin oo Somali News in Germany oo nisoo gudbin doonto maanta wararkii iyo macluumaadkii ugu dambeeyay ee ku saabsan wadanka Jarmalka. Magaalada München ayaa maanta lagu balansanaa in bartamaha magaaladaasi la iskugu yimaado si loogu tukado salaada Jimcaha kadib markii ay masaajid la'aan ka dhacday magaaladaas. ujeedada isku imaanshaha la iskugu yimaanayay bartamaha magaalada München ee la doonayay in lagu tukado maanta salaada Jimcaha ayaa ahayd si loo dareensiiyo siyaasiyiinta magaaladaas in ay magaalada bartamaheeda u baahan tahay masaajid ay muslimiintu ku tukadaan kadib markii hore la xiray masaajid ay ku tukan jireen muslimiintu magaaladaasi München. xisbiga garabka midigta fog ee AfD ayaa ku andacoonaya ama aan ku qanacsanayn cod bixintii qaabka loo tiriyay codkii ka dhacay toddobaadkii hore gobolka North Rhine-Westphalia ee galbeedka Jarmalka halkaas oo ay sheegeen in si cadaalad darro ah codka loo tiriyay isla markaana aanay ku qanacsaneen waxa ka soo baxay halkaasi. gobolada warbixin cusub oo ay daabacday dowladda Jarmalku ayaa sheegaysa in gobolada bariga Jarmalku ay yihiin gobolada ugu cunsuriyada badan isla markaana ay ku badan yihiin dadka aaminsan fikradda garabka midigta fog, taas oo sanadkii ina dhaafay ay ka dhaceen dambiyo ay gaadhaya 3,500 oo dambiyo oo ay geysteen kooxaha taageera xisbiyada garabka midigta fog isla markaana aaminsan in qaxoontiga laga soo horjeesto. bariga Jarmalka ayaa badanka qaxoontiga waxa ka soo waajaha weeraro loo geysto isla markaana lagu weeraro kaamuunka ama wadooyinka ay marayaan. bariga Jarmalka oo ahaa qaybtii uu haysan jiray Ruushku ayaa ilaa hadda waxay aaminsan yihiin mabda ah in aan ajaanibka la siin chance ay wadankan ku noolaadaan. dadweynaha Jarmalka bari ayaa waxay ka noqonayaan saamiga dalkan Jarmalka 9% marka la eego bulshada Jarmalka. raay ururin maanta ay samaysay qaar ka mid ah saxaafadda Jarmalku ayaa shaaca ka qaaday ama daaha ka rogtay in maanta haddii ay doorashada Jarmalku dhici lahayd xisbiga SPD uu heli lahaa 330 codadka ay dadweynuhu dhiibanayaan halka xisbiga CDU ay hogaamiso Angela Merkel uu heli lahaa 750 halkaas oo guushu ay ku raaci lahayd xisbiga hadda talada dalka haya ee CDU ay hogaamiso Angela Merkel. warka ugu muhiimsan ee maanta ku saabsan immigrationka ama socdaalka wadankan Jarmalka ama magangelyo doonayaasha ayaa wuxuu yahay in baarlamaanka la horgeeyay sharci cusub kaas oo dhigaya in qofka magangelyo doonka ah haddii la siiyo diidmo la mastaafurinayo isla markaana haddii la mastaafurin waayo xataa lagu hayn doono xabsi ama wax loo yaqaano detentionka. arrintan ayaa daba socota kadib markii sanadkii hore uu nin Tunisiana uu gaari jiirsiiyay dad ku dabaaldegaya bartamaha magaalada Berlin una dabaaldegayay ciidda Masiixiga. wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Jarmalka Thomas Mesiri ayaa difaacay arrintan. dhanka kale xisbiga CDUS iyo SPD ayaa sheegay in la sharciyeeyo arrintan inta aanay gaarin doorashada dhacaysa sanadkan bishiisa 9aad ee nagu soo aadan. xeerkan ayaa wuxuu dhigayaa in qofka magangelyo doonka ah la baaro telefoonkiisa isla markaana lagu dabaqo macluumaadka telefoonkiisa laga helo waxyaabaha uu sheegay hay'adda qaxoontiga iyo socdaalka ee wadankan Jarmalka, taas oo hay'adda socdaalka iyo qaxoontiga ee wadankan Jarmalku ay raaci doonto macluumaadka laga helo telefoonkiisa. sidoo kale waxa jira ama si gaar ah loo eegi doonaa dadka magacyo been ku soo gala wadankan Jarmalka ee magacooda ahayn sheegta, taas oo ka dhigan in qofkaasi uu yahay qof khatar ku haya bulshada isla markaana arrinkiisa si gaar ah loo eegi doono oo xeerkan isagana lagu xusay. dadka iyagu looga shaksan yahay argixisada ama in ay bulshadan dhibaato ku hayaan ayaa iyagu dhulta waxa lagaga xiri doonaa qalab elektarooniga kaas oo lagala socon doono kolba waxa ay sameynayaan iyo nolol maalmeedkooda inta aan la mastaafurin ka hor. haddaba sharcigan cusub ee maanta baarlamaanka Jarmalka la horgeeyay ayaa wuxuu noqon doonaa tallaabo uu xisbiga CDU uu doonayo in uu ku adkeeyo isla markaana wax kaga qabto waxyaabaha lagu eedeeyay oo ah in sanadkii 2015 uu ogolaaday wadankan Jarmalka inay soo galaan qaxoonti fara badan. iyadoo ay nagu soo aadan tahay doorashadii madaxtinimada ee wadankan Jarmalka ayaa xisbi walba waxa uu isku dayayaa inuu waajandihiisa ama mashruuciisa uu doonayo inuu ku kasbado cod bixiyayaasha uu banaanka u soo saaro isla markaana
uu ku apply gareeyo ama uu ka dhigo mid meel mara si uu u helo codka dadweynaha. haddaba sharcigan cusub ee baarlamaanka maanta la horgeeyey ayaa waxaa dhaliilay ama ka soo horjeestay ururada u dooda qaxoontiga iyo xuquuqul insaanka, kuwaas oo sheegay inay dhibaato ku tahay dadka magangelya doonka ah ee waddankan soo gelaya. maanta oo ah maalin jimco ah, macluumaadkii aan ninka haynay waddanka Jarmalka intaas ayuu nagaga dhan yahay. وأنا مسد دعاء وينيسو تبناي معلومات يوركا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمانتين جمعة ونكسن. ميكي هاتنا waxaan idin soo gudbin doonaa qaybtii suugaanta ku soo dhawaada iska mid ah heesaha Soomaalida. Ruuxa